أنا مركو عن أميسنا هنا عبنيجا وليس له لله isku aragti laga noqon laayay shabaab loogama adkaan karo in jidadka isbaara la dhigo bas shabaab wuxuu baahan yahay markuu u liito sidoo asiga u dhaqmo loo dhaqmo tuulooyinka la tago meelaha biyo waraha ku jiraan la tago ciidama heegana oo ciidamadaas oo meel walba tagay tuulo walba istaagayo ciidama hadii dhibaato ay la kulmaan u diyaarsan oo u gurmada in loo helo in arintayada annaga iyo caalamka iyo dawladda federaalka iyo maamulada baan iswarsano oo shabaab sidee looga bixin karaa meel kasto oo qof Soomaaliya taagan yahay haday magaalada tahay baadii tahay in ciidan istaago oo shabaab la diriraay hadii taa la heli waayo shabaab laga ma adkaan karo waxa kale oo anaga noo muuqata in la isku hakranayo shabaabka arrimihiis sababtoo ah dawladda federaalka maraysan waxayni waa jirta laakiin hadda oo rasaas tiradeedu cid walba ay ogtahay hayso in ilmihii inay soo dhintaan diyaar u ahaa oo shabaab inay la diraan maalin walba 4 qoorno wadanka kula dagaalamayo ay rasaas siin weyso horeyna raashin u siin weyso daawo u siin weyso marka maxayna tusaysaa marka taas wixii hore hadaan dhigi jirnay lama hayo hadda la hayo hadii la bixin waayo maxayna tusaysaa in isku aragti laga helo shabaab si loola dirira dadka Soomaalida ciidamada dawladda federaalka SNA ciidamadeena waa anaga hadii ay la dagaalamaan oo shabaab ay umada ka celiyaan raalliyan ka nahay laakiin haday ku filnaan waayeen in ciidamada maamul goboleedyadu ayaguna ay dagaalamaan oo aabiyaashoodii iyo walaalahoodii hooyooyinkoodii la dilay oo diyaar u ah inay maanta iska kiciyaan kuwan oo dawladiidka oo dhibaatada ku hayo hadii marka laba kaalmeyn waayo waxba loo ogolaan waayo sidaasna 3 sano wax la jiray ku dagaalamayaan maxayna tusaysaa taas ayada aniga waxaan leeyahay arintayda in aad hoos looga xariiqo hadii dalka iyo dadka wanaag laga rabo